kusoo dhawaada maanta ay bishu ay tahay 2 bisha Febraayo 2022 qodobka aan kusoo qaada dhigi doono maanta aad ka dhageysan doontaan barnaamijkeena maalinlaha ah ee qubanaha farmaajo maaragtaa amar degdeg ku siiyay qorqor iyo ninka la yiraahdo lafta gareen inay degdeg dal magaalada Muqdisho kusoo gaaraan kaasoo maaragtaa in badan la qarinayay oo waxaan ognahay sidaas la mid ah in ninka la yiraahdo lafta gareen uu habeenaba halkan uu joogay muddo labadii habeen la soo dhaafay qorqorna uu yimid haddaba waa maxay muxuu daaran yahay shirkaas ay yeelanayaan nimanka la yiraahdo nabar iyo naxdin ama nabad iyo nolol midda doontaba oo aqoowe waxaa lagu tilmaamayaa shirka inuu farmaajo isugu yeeray kadib markii ninka la yiraahdo qorqor looga shakiyay hadafkii uu lahaa ama barnaamijyada meesha loo geystay oo sida ay tahay uusan u fulin halka ninka la yiraahdo lafta gareenna uu barnaamijka uu sidoo wax ku fulinayo oo farmaajo arko 100% mid ku haboon soo laabashadiisa kaasoo maaragtaa qorqor maadaama laga shakiyay oo shaki laga muujiyay ayaa farmaajo wuxuu yiri halkan isugu keena shir albaabadu xiranayay saddexdooda gali doonaan waa isku qasban yihiin waa dameer labadiisa dhagood farmaajo maalinta maaragtaa xilka laga qaado oo laga guuleysto waa inaysan diyaaradiisa ka harin qorqor iyo ninka la lafta gareen waa wax ay ku qasban yihiin weeyaa marka halka ay taagan tahay waxa la yiri ayaan dhaxdaasna suuq wuxuu soo galiyay ninka la yiraahdo qorqor wuxuu suuq soo galiyay inuu asagu naftirkiisa musharax yahay madaxweyne ama ra'iisul wasaare maaragtaa haduu la ku roon yahay inuu noqdo u baahan yahay yuu ka heli karaa marka maadaama madaxweynenimada qorqor maanta inuu tartamo ay adag tahay yuu ra'iisul wasaare ku heli karaa ra'iisul wasaare wuxuu ku heli karaa nin daaroodo halkan yimaado haddaba farmaajo muu ogol yahay inuu qorqor ra'iisul wasaare ka dhigo iminka weeyaan mid loo fadhiyo oo la iska wareysanayo oo miiska inuu soo saaro la rajeynayo ninka la yiraahdo qorqor oo dhihi doono ra'iisul wasaare maaragtaa dabcan dad farmaajo soo laabato nin hawiyaha ayaad ka dhigi lahayd ra'iisul wasaare aniga yaa iga xiga maaragtaa soo anigu wax dariska koowaad maahay oo saaxiibka maahay taa weeyaan midda maanta miiska saaran oo laga heshiin doono oo la kala qoran doono in haddii maanta shirka lagu heshiiyey waxay ka dhigan tahay ra'iisul wasaare in qorqor laga dhigi doono haddii lagu kala kacana waxay ka dhigan tahay inuu maaragtaa farmaajo iyo ninka la yiraahdo ismac salaameeyeen qorqor uu dhisi doono nin daarooda inuu dhisi doono daaroodkaas oo ah ninkaas daaroodka oo ah nin aan hadda la aqoon oo dabcan waxaa kugu soo dhici kara daarood markii la dani oo kale in maaragtaa uu tartami doono cid walba ogta dani in maaragtaa fursadan uu ku heli karo anigaan halkan fadhiya aan uga fursad badanahay inaan madaxweyne dalka ka noqdo qorqor iyo nafta ninka la yiraahdo farmaajo qodobkaas ayay isku hayaan in maaragtaa ra'iisul wasaare uu ka dhigo dabcan hawshan ay sidaa ku socoto maadaama asagu naftirkiisa nin siyaasadda inuu horumar ka gaaro rabo ay ku filnaan la adahana meeshaas halka kaliya inuu joogo oo rabo inuu soo macsalaameeyo qodobka weeyaan qodobkan maanta aan intaasaan ku soo koobaynaa farmaajo iyo maaragtaa shirka qarsoodiga ah ayaanta la qarinayay aan idin sheegnay wuxuu daaran yahay wixii ku soo gabagaboobo halkan ayaad kala socon doontaan akhyaaray sii sheer gareeya si maaragtaa asxaab fara badan oo qodobkan u gaaro waa mahadsantiin